waxa la tilmaamaa oo taariikhda ku taala inanba xanuunsatay deetana dhakhaatiirtii dunida oo dhan baa loo geeyey dhakhtarkii loo geeyaaba waxay ku tiraahdaa daa'i minhu dawaa'i aniga dawadaydu waxay ku jirtaa xanuunkeyga ee hal la daweeyo waa laga wadaa ku kala loo geeyaa hospitaal kale iyo dhakhtar kale loo geeyaa markuu baaro iskaanka uu saaro dawo kasta uu u soo qoro waxay ku tiraahdaa daa'i minhu dawaa'i dawadeydii hal la isiiyo deetana dhakhaatiirtii dunida oo dhan baa gabadhii fahmi weyday meesha laga hayo cudurka haya iyo waxay u jeedo iyo waxa lagu daweynayo kadib gabadhii nin culimo ah oo culimadan la yiraahdo cilmu nafsiga ay ku takhasuseen psychologist ah oo cilmu nafsiga ku fiican baa loo geeyay kadibna gabadhii buu wareysto wuxuu ku yiri adeer maxaa ku haya waxay ugu jawaabtay adeer macaan waan xanuunsanahay dawadaadu halkay ku jirtaa waxay ku tiri daa'i minhu dawaa'i xanuunk dawadaydu waxay ku jirtaa xanuunkeyga sheekhi wuu fahmay nin culimo ah oo diinta islaamkana aqoon durugsan u leh cilmigan caafimaadka cilmu nafsiga ana aad u yaqaan u ahaayo wuxuu yiri gabadhu intaasoo sano iyo intaasoo jeer bay idiin sheegtay danta caafimaadkeeda iyo dawadeeda maxaad ugu diideen aabbihii iyo hooyadii way yaabeenoo oo sheekhu muxuu yahay inantani dalabkeeda ama dawadeedu muxuu ku jiraa inantu guur bay rabtaa u guuriya inantii waa loo guuriyey markii guriga loo geeyey ee lamaanaheedii ay la kulantay wahabkii ka duulay waxay la mid noqotay neef geelo dabranaayo dabarkii laga furay oo kale fag way bogsatay taasi waxay marqaati u tahay baahidan hoose ilaahay addoomihiisa ku nimcaystay inay jirto qofka marka ay qabato ama ay ka badatana ay maanka iyo maskaxda iyo ay ka qaado ama uu la xanuunsadaba ama uu la waashaba dawadeeduna ay tahay guurkaasi xalaasha ah kii ku kaaftoomi waayana meel baas iyo dembi ayuu kula dhacaya waxaa kaloo baahidan nimcada ah ee jinsiga ah ee hoose ee farjigu ilaahay addoomihiisa ku manaystay ee ku abuuran in badanna maanta ay dayaceen amaba ay iska dhigatirayaan ama in badan oo kamida si aan ilaahayba raalli ka ahayn ay ku gudanayaan waxa tusaale u ah ama markhaati u ah waxa weeye sheekh Soomaaliyeed baa wuxuu arkay waa qiso cajiib oo dhacday weeye oo taariikhda Soomaalida ay ku jirtaaba nin culimadii Soomaaliyeed kamida ayaa wuxuu arkay gabadh buu arkay gabadhaasi waa gabdhahan suuqa iska galay oo jirkooda ganacsada ah gabdhahan suuqa iska galay jirkooda ka ganacsada jirkooda iibiya gabadh kamida ayuu arkay markaasuu damcay sheekhani gabadhaasi inuu waaniyo wacdigiibuu u bilaabay bahashan sinada ah dhibaatooyinka ay leedahay adduun iyo aakhiraba inuu uga sheekaynayo ayuu u bilaabay ay dhis baa laga qaadayaa cudur baa laga qaadayaa dhiig la'aan baa laga qaadayaa aakhira beer bay leedahay ka joog ma wanaagsana ka joog ma fiicna ka joog difaaca ka yaraanaya ka joog ilaahay baa kuuga caroonaya ka joog ay dhis bay leedahay ka joog jabtay leedahay ka joog kaadi furan bay leedahay ka joog dhabar furan bay leedahay ka joog fool xumay leedahay ka joog carcalay leedahay ka joog waa lagu nacayaa ka joog gabadhii way ka dhageysanaysaa haye sheekhow say u dhageysanaysay haye ay u lahayd
sheekhiina uu u moodayo gabadhani wacdiga inuu ku socdaba waxay tiri sheekhow waa la isugayaa ii dhaqso sheekhow waa la isugayaaye ii dhaqso bay ku tiri markaasuu sheekhi intuu yaabay wuxuu yidhi waana dhalan baa ka adag qofay meeli u caddahay meeli ka madow gabadhaasi wacdigan loo sheegayo waanadan loo sheegayo aakhiradan loo sheegayo sharafteedii loo sheegayo dembigan iska dhaaf lagu leeyahay maxaa dhiga tiray maxay u qaadan la'dahay maxay uga madowdahay maxay u leedahay sheekhow waa la ii taagan yahay ii dhaqso waxaa weeye baahi baa jirta oo qof kastoo bani aadmiga ilaahay uu kaga abuuray farjiga oo jinsi ah oo baahidaasi in la daboolo sidii ilaahay uu sheegay loo daboolo sidii diintu ay sheegtay loo daboolo xalkeedu diinta islaamku ku jira sida nebiga uu sheegay diintu ay sheegtay oo caqliga saliimka iyo fidrada saliimka ana ay sheegayso qofka bani aadmiga baahida hoose hadday ka badato sidii ilaahay uu u tilmaamayna uu la gees maro sidaa iyo si ka daran buu u waalanayaa waanaduna waxbaba ka tari mayso dhagax taabasho iyo toontoomo isaga mid bay noqonaysaa waa la ii taagan yahay sheekhow ii dhaqso unbaa ka soo boodaysa